السلام عليكم maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha tobnaad sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxtooyada qaranka wafdiga difaaca arrimaha badda ee Soomaaliyeed ee inooga qayb galay maxkamadda ICJ wafdigaas oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed markii wafdigu uu ka soo degay garoonka aadan cabdulla cismaan maanta waxa halka si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka iyo golaha wasiirada xildhibaano iyo bulsho Soomaaliyeed oo halka si diiran ugu soo dhaweysay kadibna waxa wafdigu si toos ah ugu yimi madaxweynaha jamhuuriyadda iyaga oo warbixin ka siiyay guulihii ay ka soo hooyeen maxkamadda ICJ madaxweynaha jamhuuriyaddu markii uu soo dhaweeyay ka bacdi waxa uu wafdiga ku bogaadiyay isla markaana ku amaanay doorkii halyeynimo ee adkaysiga lahaa ee ay ugu dhabar adeegeen intii ay dacwadani socotay iyagoo oo akhiritaankiina ka lib keenay madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay ka go'an tahay difaacidda seerayaasha badeed iyo kuwa dhuleed ee jamhuuriyaddeena waana tan ay u dhaarteen madaxda qaranku waad mahadsantihiin